بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay tahay taariikhda 3 bishii 8 waxaan baarlamaanka Kenya aan keenay petition oo ma aragtay laga qaabilay petitionkaas oo ku socdo Senatka iyo National Assembly-ga khaasatan komitida u xilsaaran difaaca wadanka iyo ilaalinta nabadgelyada. Arrinta waxay daba socotaa baraxyo fara badan iyo dagaalo fara badan oo ka dhacaan hal dhihi jiray meesha la yiraahdo Abaqayle oo aniga aan wakiil ka ahay. Marka petitionkaas oo aniga aan saxiixay waxaana kaloo ila saxiixeen dad badan oo ma aragtay ka soo jeedaan Abaqayle ayaa ila saxiixeen waana laga qaabilay waxaana rajaynayaa insha Allah inay lagu dhaqaaqi doono ma aragtay waxna laga qaban doono nabadgelyada darrada ka jirto wardkayga khaasatan iyo dhadhaab oo dhan oo ma aragtay qarax badan iyo ma aragtay nabadgelyo fara badan ay ka dhacday. Petitionka wuxuu ka kooban yahay oo aan ka codsanayna dawladda Kenya in ay dib u baarto, dib u fiiriso, dib loo hirgeliyo heshiiska Kenya iyo ka dhaxeeyo ma aragtay dawladda la yiraahdo Soomaaliya oo ku saabsan nabadgelyada borderka. Nabadgelyadaas oo aad iyo aad ma aragtay 30 sano nagu qaadatay in maanta ma aragtay ilaa hadda waxa xasilooni ah la heli lahayd. Waxa kale oo aan ka codsanay in naloo furo Liboy iyo Xarxaar border points in naloo furo. Sifa loo furana waa in dawladda Kenya ay xiriir la yeelato, la howlgasho, la tashato, la maaragtay negotiation la gasho dawladda sare federaalka ee dawladda maaragtay federal government-ka. petitionka hadii aan wax yar ka sheego waxa weeyaan qodobada aan codsanayno anagoo ogsoonahay inay tahay maaragtay sharciga Kenya uu ogol yahay in anigoo ah xildhibaan golaha hoose baarlamaanka Garissa County laga soo doortay in National Assembly-ga aan keeni karo petition oo ka codsan karo inay dib u fiirin lagu sameeyo, dib u habeen lagu sameeyo qodobada ay ka kooban tahay heshiiska Kenya iyo ka dhaxeeya Soomaaliya oo ma aragtay ku saabsan nabadgelyada iyo ma aragtay xasiloonida iyo horumarka. Maxay yeelay hadii borderka loo furo horumar baa imaanaya waxaan alaabahanada iska soo galayaan oo ma aragtay sharci la'aanta wiilasha lagu rafaadin hayo koona la soo marin hayo dhan baa heli lahayn fursad ma aragtay si fiican borderka u soo maraan. Waxaan aaminsanahay inay darooga ay ka soo gasho ma aragtay borderka asaga alaab badan oo canshuurneyn ay ka soo gasho alaab badan oo laga yaabo inay expire tahay alaab badan oo ma aragtay laga yaabo hata isticmaalkooda inuu khatar ku yahay wadanka ay ka soo gasho. Waxa kale oo ma aragtay fursad noo siinaysa in magaalada Liboy ahayd oo magaalo aan ku soo koray ah maanta waxa weeyaan aad ba u hooseysa hadaa fiiriso. Maxay yeelay waxa la wixii ganacsi ee ka socday iyo ma aragtay korsaarka ee korsaarneed ee ku xirneed Soomaaliya wixii oo dhan ma aragtay uu naga joogsaday. Saad ogsoon tahay Liboy sida ugu fudud ay u heli kartaa alaab inay Kismaayo ka soo dejisato. Maxay yeelay Mombasa aad bay uga fog tahay waa 600 kilomitir weeyaan Kismaayana waa 300. Marka iska dareemi kartaa alaabtii qofka intuu ka soo dejisan lahaa Mombasa inuu ka soo dejisto meesha la yiraahdo Kismaayo Liboyna ay noqoto waxa la yiraahdo dry port oo ma aragtay meesha ay noqoto meel sidii lagu aqaani jiray marka hore taba ma aragtay loo bartay. intaas aan marka ka codsanaynaa dawladda Kenya waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in la yeero aniga iyo ma aragtay dadka kale ee ka soo jeedo Abaqayle ee petitionka keeneen sifa aan arinta ayada u lifaaqno. Petitionku wuxuu ka kooban yahay 9 page wax badan baan kaga hadlay oo ku saabsan arrimaha Kenya iyo Soomaaliya waxaana ka codsanaynaa insha Allah komitida National Assembly-ga uu heergareynhayo Mheshimiwa Nelson Koech inay sida ugu dhaqsaha badan ay yeeraan